Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada komitiya A plus amba IT technician. Waxaynu soo jeedinaysaa Somali Technology Solution bay cilmi ciise. Maanta hadduu ilaadho insha Allah waxaan ka hadli doonaa qaybta loo yaqaano BIOS iyo CMOS iyo waxyaalaha loo soo gaabiyey iyo waxyaalaha ay qabato iyo nooca ay tahay ayaan ka hadli doonaa. casharkana waa casharkii 14aad practicalna insha Allah mar kale ayaan ka hadli doonaa hadduu ila dhaado la socda casharka. BIOS muxuu yahay? BIOS waxaa laga soo gaabsaday weedhan input out basic input output system ayaa laga soo gaabsaday. hore waxaan soo aragnay input devices iyo output devices, kuwa wax computerka dhex geeyo kuwa wax ka soo saara. marka BIOS waxaa kaloo loo yaqaanaa system firmware na waa loo yaqaanaa firmware na waa loo yaqaanaa. BIOS-ku waxa weeye waa software ku qoran chipsetka amba softwarekaasi markaa waxay u kala turjuntaa birta iyo physical hardwareka uu computer ka kooban yahay iyo windowda amba operating systemka ayay u kala turjuntaa. waa program hard coding amba embedding loogu sameeyo hardwareka. wuxuu ku duugan yahay wax la yaqaano physical chip. marka waa programming coding ku qoran halkaas. wuxuu leeyahay markaa faa'iidooyin fara badan, kuwaas ayaan baran doonaa. BIOS haddaad rabtid inaad English ogaatid, the BIOS is a software that built into motherboard. waa software ku dhisan amba lagu dhisay motherboardka that initialize the computers peripherals, kaas oo inoo suuro geliya computerka qaybihiisa. system BIOS wuxuu noqon karaa hardware sidan oo kale ah. memory, read only memory inta badan ayuu ku jiraa. BIOS waa kaas. shirkadaha BIOS-ka ee ugu caansan waxaa ka mid ah mid la yidhaha American Megatrend iyo midka loo yidhaha Phoenix Technology. BIOS-ka wuxuu kaloo isticmaalaa CMOS battery wax la yidhaha baa jira. CMOS battery waxaa laga soo gaabiyey weedhaas complementary metal oxide semiconductor, amba waa dhagax yar oo u ekan saacadaha la geliyo oo kala ah. faa'iidooyinku qabtana waxa weeyaan inuu ku siiyo correct time iyo correct date saxa iyo time saxa inuu ku siiyo ayaa loogu talagalay. computerka markaa settingkiisana wuu ilaaliya. computerku systemka siduu usoo baxayo markaa chipsetka ayuu ku yaala. wuxuu kaloo ina siiyaa real time clock iyo hardware settingna wuu inoo ilaaliyaa inuu computerku hard drive-ka kasoo kaco for example. waxaasoo dhan buu inoo qabtaa. BIOS-ka sidaan usoo sheegnay hore waa input output device. noocan uu egyahay computerka marka ugu horeysa eed shidid qaabkan ayaa soo baxa. wuxuu ku odhanayaa sidan oo kale uu ku siinayaa. markaa for example haddaad F1 amba F2 aad taabatid amba delete in keyboard haddaad taabatid waxsaawe BIOS amba system firmware saas uu egyahay. programkan markaa waa programka ugu horeeya ee computerka ku qoran. programkani markaa wuxuu suuro geliyaa hardwareka
iyo motherboardka ayuu u kala turjumaa iyo softwareka. BIOS kale oo cusub oo waxaa jira la yidhaahdo UEFI amba loo yaqaano Unified Extensible Firmware Interface. waxay ku kala duwan yihiin waxa weeye kani wuxuu isticmaalaa waxaad isticmaali kartaa mouse ayaad isticmaali kartaa oo waxaad arkaysaa mousetaadii oo socota. BIOSka noocan eegna wuxuu leeyahay keyboard unba isticmaali karta, marka waa isagoo la casriyey. computerka marka ugu horeysa ee la shido wuxuu sameeyaa wax la yidhaahdo power on self test oo loo yaqaano POS, kaasoo jeekaraynaya hardwarada computerka isku xidhan dhammaantood inay sax yihiin suuro gelinaya. okay, wuxuu kaloo ku siiyaa waxaa kalood ka helaysaa menuga amba hardwareka uu ka kooban yahay meelihii aad wax ka bedeli lahayd oo kale. haddaan isbarbar dhigno labada BIOSkii hore iyo kan dambe oo loo yaqaano basic input output iyo UEFI, marka BIOSyada noocan oo kale waxaa ku socota Windows 7 iyo wixii ka horeeyay. kana wuxuu ku yimid Windows 8 ilaa Windows 10 iyo wixii kasii dambeyn doona. markaa saasay u kala casrisan yihiin oo ay u kala dambeeyeen. practicalka marka la sameynayo amba computer window lagu sameeyo waa inaad legacy BIOS dooratid. waanu iman doonaa waxyaalahaas. saasay markaa u kala duwan yihiin, noocyadaasi u kala eg yihiin. kan markaa BIOSkan keyboard uma isticmaali kartaa left and right arrowada adigoo isticmaalaya. kan laakiin mouse daad isticmaali kartaa. saas u kala duwan yihiin. diagnosing baad xitaa ka samayn kartaa. BIOSka waxyaalahan oo dhan ayaan ka heli karnaa ambaan ka qaban karnaa. CMOS setting, CMOSka batterygiis ayaa settingkiisa tegi karnaa. BIOS setup baan samayn karnaa. waxaan kaloon samayn karnaa wax loo yaqaano kuwan oo kale ayaan dooran karnaa escape, delete, F1, F2, F10. kuwana BIOSka marka ayna geyn karaa si aan BIOSka u tagno. marka computer marka ugu horeysa soo shidmaya wuxuu ku odhanayaa F2 taabo haddaad doonaysa inaad tagtid in a keyboard system setup. F10 taabo haddaad doonaysid system services. F11 BIOS boot manager. F12 BIOS boot haddaad doonaysa inaad tagtid amba BX waxaa loo yaqaano. marka way kala duwan yihiin kolba kan imikani waa Dell, shirkaduhu way kala duwan yihiin. marka information fara badan waxaad ka heli kartaa manufacturer website-ka amba qoladii samaysay. BIOSku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyaa inaan sameyno wax la yidhaha boot priority amba priority. bootka oon doorano meeshuu kasoo shidmayo amba boot order waxa loo yaqaano. computerka haddaan doonayno inaan kasoo kicino amba uu kasoo shidmo CD-ROM amba floppy disk amba USB, kaasaan number 1 ka dhigana. for example, computerka marka la doonayo in window cusub lagu shubo waa inaad dooratid shayga kugu jiro Windows. marka boot order baa loo yaqaanaa taana. BIOSku wuxuu kaloo faa'iido leeyahay waxaad ku xidhi kartaa password suuna qofba waxba ugu shubin oo loo yaqaano set supervisor password. password haddaad gelisid computerka BIOSkiisa oo qof rabo inuu wax ka bedelo kama bedeli karta ilaa uu garto passwordkaas. waxyaalo kaloo faa'iido kaloo leeyahay BIOSku waxaad ka heli kartaa practical application weeyaan. password baad ku samayn supervisor password taan ka soo user password, drive log, hard drive-ka ayaad log ku samayn kartaa. wuxuu kaloo leeyahay drive encryption baad u samayn kartaa. systemkaad ka xidhi kartaa. intrusion detection wax la yidhaha buu leeyahay oo viruska waxa iska celiya. qaybaha badan buu leeyahay. computer waxaa kalood ku samayn karta wax la yidhaha clock speed and overclock. computerka
speedkiisa ayaad kordhin kartaa. waxa kaloo leeyahay waxa la yiraahdo original equipment manufacture CPU features. CPU featureskiisa speedki cycle-ka uu ku socdo kale ayaad yareyn kartaa si uu long time u noolaado waad dejin kartaa. waxa kaloo leeyahay fast boot wax la yiraahdo oo bootka degdeg soo ugu soo shidmo hard drive-ka. RAM setting buu leeyahay. wuxuu kaloo leeyahay power management, dabka inaad manage karaysid oo computerku markuu 5 seconds la isticmaali waayo amba 5 minutes in la damiyo inuu istamiyo dabka iska safe mode iskiyo. waxa kaloo leeyahay wax la yiraahdo diagnosing and monitoring, inaad ad ciladiisa jeegaraysid ood eegtid amba aad monitor karaysid systemka. configuration BIOS security, inaad security ku samaysid ayuu ku siinayaa BIOSku. waxa kaloo ku siinayaa inaad samaysid wax la yiraahdo VM amba virtualization markaa wuxuu leeyahay inaad waxa weeyaan waa inaad kombiyuutarro badan hal kombiyuutar oo kaliya aad ku shubtid amba window badan aad ku shubtid amba gas computers. operating system and hypervisor ayaa laga soo enable laga dhigaa. waan baran doonaa iyagana insha Allah. waxa kaloo leeyahay drive encryption. waxa kaloo leeyahay low check wax la yiraahdo oo laga xidho systemka. intrusion detection oraan uga soo hadalnay iyadana in viruska uu iska celin karo. iyo wax loo yaqaano security boot device kale hadduu qofku ku xidho oo yidhaahdo ha ka soo kaco oo maya macnaha security boot waxa yidhaha ayaad samayn kartaa oo qofku window kuma shubi karo. markaa BIOSku waxyaalahaas oo dhan oo faa'iido ayuu leeyahay. markaa cashiradeena soo socda waxaan ku eegi doonaa practicalka qaabka u shaqeynaya. tani waa theory weeyaan. halkaasaan ku joojinaa cashirkan. waad mahadsantiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.